بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قفك مؤمنك ذنبك ير إيا كوين إيا كوكس طبينو كتوبت كينويا. قفك مؤمنك وين التوبت لازمه. نبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلهي خلقك كوكا دورتيا يا حلي مالنتي إن تضباطا شير كبدا أيان إلهي سبحانه وتعالى وتوبت كينا وحكى له أباهن مركز مكو قفك الذنوب تك توبت كينا إنه لي ماده أسبابها كان سنية إنه خير كاللازمة وأنا التوبة دادو تذبذب أنا كل أنا أدب النقطة حتى هذا أدب النقطة طيدها شكني صار نقط إلهي وغفور رحيم قابل الطوب شديد العقاب غافر الذنب وقابل الطوب غافر الذنب وياه وقف هدو إيمان كل انتو آخرة وتحت المشيئة إذن إلهي وغافر الذنب ودافكر الذنب هدو توبت كانين وقابل الطوب وطوبت الله وكا أقبلها هديك لنا نارتا اللوغو مايدايا haddii aanu gaalnimo ku dhimanin naartu waa meel lagaga taahirinayo uskagii dembigu uu kaga tegey marka inaad toobad uskaga iskaga maydhid iyo inaad naar iskaga maydhid mid baa jooga waxaa habboon qofka mu'minkii inuu ku dadaalo inuu maydho oo uskaga dembiga uu iskaga maydho toobad oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u toobad keeno sababaha ku gargaara dadka toobadana waxaa ka mid ah kow ikhlaaska كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين نبي يوسف مرقى قال لك ورمي إلهي تلمامين حمها يفحشاء وحاصلنا إلا كويعي وحلقوا عليين ويهي قدومها إلهي مخلصين تعمل الله دورتي إخلاص مرقى وحكم يبيع علماء هذا وحوناك يطوبة قفك وقرقارة وحكم يبيع علماء هذا طوبة قفك مركو كان وحخير نقوها المجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إن الدداشد وهذا خيرك كدداشد فحكم إذا وحيابا قفك مؤمن كاتوبد وقرقارة إنه رجد صور لما قصر الأمل أدات سنة وتسين ولندن ولد اللي يرى توبر باحدي هذا عرض كبا ملك الموت وغبطه وما باهنا مركاين الداء قاعدة دير سيدرادت قرر ميسيد وقت النفط كابحيس تكلم معصيده هداي بدطه معصبة عقوبة وكينتا معصيده هدي بالغوسي عقابة يا متكله سيدا وجد وحفي عن قفك مؤمنك سيد النبي قال عليه الصلاة والسلام تريد كن نقاء كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل متكتلابة يه جد أما مت غريب وماشى صوب قلايون haddaad niyaddaada amalka haddaad soo gaabiso toobaddaadu way badanaysaa waxyaabaha toobadda kaalmeeya waxaa ka mid ah aqoonta iyo cilmiga sharciga inuu barto waayo cilmigu waa toosh nolosha lagu ifsado oo shay walba xaqiiqadiisa lagu arko oo cibaadadu khayrkay leedahay lagu arko macsidu balaayaday wadatana lagu arko waxaa ka mid ah waxyaabaha dadka toobadda iyo wanaag iyo khayrka ugu gargaara inuu qofku firaaqada iska ilaaliyo iyo kelinimada bay yidhahdaan kelinimadu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam midku keliga safra waa shaydaan labaduna waa shaydaanmo saddexduna waa safar baa la yidhi yacni shaydaanku intaad keli tahay waa kugu lamaan yahay aad buu kuula joogaa waxaa la mid ah inta aad firaaqo iska tahay qofka mu'minkii inaanu firaaqo noqon baa fiican cibaado ku mashquul waxbarasho ku mashquul xoogsi ku mashquul wakhtigaaga isticmaal waxay keensanaysaa inaad macaasida ka fogaato laakiin dhallinyaradu haddaad qol intaad iska xidhato tv-ga daawato waad wareeraysaa sidaa ogeed culammadu waxay dhahdeen waxyaabaha qofka macsidana ka durkiyo toobaddana u dhoweeya waxaa ka mid ah albucdu can almuhiiraat waxyaabaha qofka hamigiisa kiciya inuu ka durko jaraa'id tv waxyaabahan xunxunee qudhanka faafiyoo dhan waxaa ka mid ah waayo ibn aljawsi baa laga sheegaya inuu lahaa من قارب الفتنة
bacudat canhu salaam. ninka balaayada u dhowaadiya meesha imtixaanka nabadgelya kaa way ka dheeraatay buu leeyahy. haddaad mushkilaadka u durugto waa dhib. waxaa ka mida toobada waxa kuu wanaajiya dadka khayrka qaba inaad raacdo, kuwa sharka qaba iskaga hadhi, arrimaha cidhibtooda inta badan inaad ka fakartid, iyo inaad in badan ku dadaashid inaad barido ilaahay weydiisato inuu toobadda ku waafajiyo. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إخوتي في العقيدة، waxaan ku soo gabagabaynayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam caaisha markii beenta laga sheegay layidhi nin bay raacdiye waa kan iyo waa sinaysatay waxa kan ayuu intuu yimi buu xadiidkii bukhaari iyo muslimba wuxuu ku yidhi wain kunti almamti bidanbin faاstakfir illaah. nahooy haddii aad wax dembiya taabatay buu nebigu ku yidhi ilaahay inuu toobadkeen, ilaahay subxaana wa tacaala u toobadkeen. qofka mu'minkii markaa wax kasta oo ka dhaca waa inuu toobadda laasimaa. toobaddaasi waxay keensanaysaa aynu u baahannay inay ummaddoo dhammi toobad keento oo laga toobad keeno xumo dhammaantiid, laga toobad keeno shar dhammaantiid. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa sifada dadka mu'miniinta ee muttaqiinta inay tahay waladiina idaa facaluu faaxishatan dalamuu anfusahum, kuwa hadday xumo sameeyaan ama naftooda dulmiyaan ilaahay subxaana wa tacaala u toobad keena baa layidhi. waxaynu u baahanay nolosheennoo dhammi toobad bay u baahantay. ka umma ayaynu u baahanay inaynu toobad keeno, ka afraad iyo ka ashkhaas, ka caa'ila inaynu toobad keeno. toobadduna waxay keensanaysaa inaynu ilaahay jidkiisa u noqonno subxaana wa tacaala khayrkana raacno. intaasaan ku soo